Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda Baanka Adduunka oo ay hogaaminaysay madaxweyne ku-xigeenka u qaabilsan Bariga iyo Koonfurta Afrika Victoria Kawakwa. Kulanka ayaa waxaa si qoto dheer looga dooday mashaariicda horumarineed ee Baanka Adduunka uu ka fuliyo Soomaaliya iyo sidii loo waafajin lahaa baahida dhabta ah ee dadka Soomaaliyeed ay qabaan iyo inay noqdaan kuwa ay ka muuqato in ummadda ay leedahay. Sidoo kale waxaa kulanka goobjoog ka ahaa Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Saalax Jaamac iyo wasiirada wasaaradaha ay quseeyaan mashaariicda horumarineed ee Baanka Adduunka ee Soomaaliya ka hirgeliso. Afhayeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa ka warbixiyay kulanka muhiimka ah ee Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu la yeeshay wafdiga sare ee ka socda Baanka Adduunka. بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد برre waxaa maanta uu xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran oo sare oo ay hogaaminaysay madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka u qaabilsan bariga iyo koonfurta Afrika Victoria Kawakwe. Kulanka ayaa waxaa si qoto dheer looga hadlay sidii mashaariicda bangiga adduunka uu ka fuliyo Soomaaliya loo waafajin lahaa baahida dhabta ah ee ay qabaan dadka Soomaaliyeed. Kadib marka uu dhamaystirmo barnaamijka deyn cafinta ee dawladda Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay u jeesanayso fulinta mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha dhaqaalaha iyo in laga faa'iideysto kheyraadka badan ee alla ku manaysta wadankeena oo shacabku 75% ay yihiin dhalinyaro xoogan oo laga faa'iideysan kara awoodooda, taasi oo uu sheegay in isbedel weyn ay ku keeni doonto in guud ahaan dhaqaalaha wadanka Soomaaliya kadib marka la gaaro sanadka soo socda. Waxa kale oo kulanka looga hadlay in mashaariicdu ay noqdaan kuwa ay ka muuqato lahaansho Soomaaliyeed, taasina ay ku hirgeli karto in mudnaanta ay ka timaado dawladda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu sheegay in xukuumaddu ay dib u eegis ku sameynayso qorshaha qaran ee NDP9 la yiraahdo, kaasi oo uu sheegay in ay dawladdu ay doonayso in bangiga adduunka uu la jaan qaado meelaha ay ahmiyadda saarayso xukuumadda. Dhinaca abaaraha ayaa waxaa la saadaaliyay in xilligii shanaad ee roobabka oo markaasi la filayo cabsi laga qabo in aanay roobab diin, taasina waxaa laga codsaday bangiga adduunka in lacag loo qoondeeyo sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka ka iman kara, gaar ahaanna saameynta isbeddelka cimilada ay ku yeelatay Soomaaliya. Kulanka oo uu goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo qaar ka mid ah wasaaradaha ay quseeyaan mashaariicda bangiga adduunka uu ka fuliyo Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa loo soo jeediyay in dib u habeyn ay ku sameeyaan mashaariicdaasi oo ay waafajiyaan in baahida dhabta ah, gaar ahaanna xilligan oo dhul fara badan laga xoreeyay kooxaha khawaarijta. Waxaa lagala hadlay qaabkii adeega asaasiga loo gaarsiin lahaa shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan goobaha la xoreeyay. madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka ee u qaabilsan bariga iyo koonfurta Afrika Victoria oo ah markii ugu horeysay ee booqasho ay Soomaaliya ku timaaday ayaa waxa ay amaantay dadaalka dawladda Soomaaliya ay gelisay sidii loo dhameystiri lahaa in barnaamijka ama hanaanka deyn cafinta, taasi oo ay sheegtay in sidoo kale dawladda Soomaaliya guulaha ay ka gaartay dhinaca amniga ay wax weyn ka tari doonto soo kabashada dhaqaalaha. Waxaana ay ballan qaaday in bangiga adduunka uu la garab taagnaan doono taageero mashaariicda dhinaca horumarinta ee Soomaaliya. Maxamed Deeq Yuusuf, Hirshabelle TV.